shabeelnimood weligiin ma maqasheen hadda wuu jiraa hadda shabeelnaagood maqli jiraan shabeelnimoodna wuu jiraa adirshada waxay ka mid tahay adirshooyinka ka tirsan shirkadda Bollywoodka sidoo kalena ku caanka ah doorarkooda hogaaminta adirshada waxay ku guuleystay dabcan abaal marino fara badan aan la tirin karo sidoo kalena waxay ku jirtaa liiska boqolka adirshada caalamka ugu caansan dabcan waa adirshad firfircoon iyada heerka ay soo gaarsay Bollywoodka iyo shirkadda Bollywoodka toona aanay meel ka soo gelin yani awooheed walaayadeed aanay wax lagu kulahayn halka iyada ay soo gaarsay laga bilaabo waxay ku dhigtay waa shabeelnimood waliba nimanka naagaha leh taariikhda iyada iyo heritage qofka la socday yani waxay gelisay mission uun ka waqsan karin dhakabay ku tiri waxay ka baabisay qoyskiisii noloshiisii farxadiisii qisadii nolol abad ugu xumeed heritage crush soo marta ee qof bin aadan oo kala kulmo waa naagtan marka adirshooyin badan oo noocaas oo shabeelnimoodana way jiraan waayahay asxaab badan baa waxay soo codsanaysaa inaan uga sheekeeyo qisada Kangana Ranaut iyo Heritage Roshan run ahaantii haddana inaan halkan kaga sheekeyn karaa waa been baan idin sheegay way qiso aad u dheer meel space weyn YouTube meelahaas ay rabtaa yalkadeeda halkan aan part 1 part 2 idin ka samayn doonaa ee la socda aan ku bilaabo yaa horta aragti horeeyay Heritage Roshan iyo Kangana Ranaut gabadhan Kangana waxay jeclayd Heritage Roshan 8 jirkeed ilaa 9 jirkeed u malayn maayo ilmo yar 8 jir iyo 9 jir jacayl wax ka garanay yeelkadeeda way xiiseyn jirtay way ku hanweyneed inay aragto oo wuxuu ahaa dhiirigelin buu ahaa xitaa inay Bollywood ku soo biirto shaqada si ku xasuus waayahay kadib waxay markay filmo 2-3 iyo wax noocaas ah matashay oo laakiin loo arkay gabadh firfircoon oo khatara ay waxay nasiib u yeelatay heritage ay ku riyoon jirtay inay markay la kulanto inay film matasho filmkaas waxa lagu magacaabaa qofkii daawaday kites marka waxay ku leedahay doorka labada yar doorka weyn waxa ku leh barbara oo u dhalatay Latin America dirshada Latin America u dhalatay waayahay markay filimka la matashay kadib filimkii markii promotion waxa la sameeyay waa la xafladeeyay waa la farxay dabadeedna meesh baan xasuusanay Hindiya dabadeeda ayay lagu xafladeeyay xafladii markay dhamaatay ilaa wax weyn naf jacayl hayaa ma hargasho hurdo weyn nacda ma higsatay waxay doonaysaa inay ku matagto oo dareenkeeda jacaylkeeda galgacalkiisa 8 jirka ku soo bilaabay ay wax uga sheekayso dabadeedna waxa ku jira Heritage in soo yar istaagtay waxaan jeclaan lahaa xoogaa inaan sii caweyno moogtahay marka Heritage sida laga soo dhigtay isaga laftiisa waxay gabadhaas mar alla markay aragtay si kasta film u wada matalayna way xishootaa way ismashhuurtaa kale iska arag xaalad kale bay gashaaba markaana waxaan siraahdaa iyada u dhalatay buu yiri okay dabadeedna waxay islahayd habeenka chance ku hel aan iska sii cabcabno iska sii sharaabno way tira oranjadeena oo aan isla sheekaysano dabadeedna wuxuu yiri may quruxay berito la diyaarad iyo wada dheer bay sugaysaa wayna fiidsiixano aan iminka ka dhacaya adiguna waxa sameeyay adna ka dhac bari baynu diyaarad ku sii sheekaysan doonaa maadaama waqti badan diyaarad saaranahay way ka xumaatay ilaa waxa weeye naf jacayl hay'ada dhibanaysi dib maaha oo qof jacayl ku dhacay ama uu hayun baa dareemi karay gabadhi way kadib matay qofku markuu wax jecel yahay way adag tahay inuu wax codsado marka codsiga ka codsatay inuu la sii racaweysno uu ku gacan saayay way ka xumaatay waxay sameysay oranjigeedii bay si basatay dabadeedna qolkiisii bay tagtay way ku qaraacday isaga laftigiisa fiishi inda israrabaa iskaad gaadaya isma fahmi waayeen wuxuu fahansanaa ilaa dabcan wuxuu yiri dalool baan ka eegay albaabka daloolkiisaan ka eegay wallahi yadi dabadeedna markaasaan dadka ku yiri gabadhan aad bay magarashara ku badsatay qolkeeda geeyay sidaas ayaa qolkeeda lagu geeyay marka iyadu way ka xumaatay arinku la weynaaday diidmada iyo dhagaadaygaasi way aamstay sidii baarto ku kala tageen baarto kala soco okay sheekadu waxay noo socotay part 1kii markii ay istiraxo sheegday waxaan ku matag wixii aad ilaa 8 jirkaaga haysay isna uu ku gacan saaro yiri diyaaradda iyo bari baad isii sheekayn doontaa imika saxanaya weynay bariyaduna ay ka dabatimo qolkiisa kaga dabatimay tiray yani isku daysay inay la hadasho laakiin uu ka yeeli waayay dadkii marka meesha jooga ama hotelka jooga uu telefoon u diray yiri qolka seexiya orange ka iska badisay halkaas sheekada inoo marsay part 1ka okay kan waa part 2gii marka saa hotelkaas ay sheekadaas uga dhacday iyadu aad uga xumaatay qof wax jecel sidaynu hore u soo sheegnay wuu ka dibmaya markuu israado way adag tahay qofku markuu si dhab ah u jecel yahay qof wax jecel ama wax soo jeclaado ba dareemaya inuu yani marka u horeysa wuxuu sheego wala sheer garayo qofkiisa way adag tahay xabad kala kulul marka yani awood iyo xoog iyo maskax iyo dhiiranaan aad hore u sameyn baad sameynaysaa waa dagaal caadi ah sidii inaad qaadaysid jihaad
marka lagu gacan saydhana ka waran dadoo waxaa soo dadaal sameeyay way adag tahay sidii bay markaa u niyad jabtay way ka xumaatay gabadhana gabadh yaraysta ma wanaag waxaan ku yiri madax adag sidii bay ku kala tageen sidii bay xoogaad xarsh yarna u haysaa meel wax ka bilowdo dambana garan mayso way si dhaqan xumana uu dhaqantay qolkiisa kaga dabatay isagoo nin xaas leh buu ahaa okay news dhowrayo ahaa يعني يد لفتي واحد شاطي إن بدن إسلام ما يحلين كدي إلا ماشي حالة وضعي راكيش روشن أو هرت روش أبيه أي حصار نجي فيلم كان أيدار كقول هذا هاي كريشتري إني ليميت شو هرتك طب هذا فرحتي chance بواحد يا ميلي الباك مرلوات أي أفران استقلتي سو كفر حسنات ولا دعسنا في شيء إني دمعي يدعرتنا كمرة دمعته دمعي يدعرتنا كمرة دمعت مليون تها كدب سيدي بايسكو فهمي سيدي بوق فرحة سيدي ولا دعاء استقلتي زني ويا وأركانك هندي هذا كقرنا ناك تعلو تميز كيف جاي كريابة سيدي باش سكون قصة سيدي سكون فرحان سيدي بعده حفلة دوين كلاش داف صدق حفلة ده كاره دلشان لا هالكاسادير كحفلة ده إيد إنادر سيدي كيف هالكاري أدو سيدي با شنقات كده وصفعنا وصفعنا حركة وصفعنا أوكي مركا واحد عضي markii dambe xoogaa xiriirkooda aad u fiicnaa odaygu xitaa uu jeclaaday kan kana oo iyo suusaa laftigeeda oo xaaska rirti rashana ay si saaxiibtinaa ay gabadhan ay uga heshay oo heerka bay dhex gashay oo gabadh caadi ah loo arkaan marka ninkan يعني problemka ugu weyn ee meesha ilaa imika haysta waxa weeye sawirkan qaabka ula galay baa lagu haysta xilli hadaan wax idin ka dhaxayn sawirka noocan muxuu ahaa isna wuxuu taagan yahay meesha waa la wada joogay oo xaflad bay ahayd oo qaybta saddex la socdo waayahay kan waa baartigu wuxuu noo mariyay markii la xafladeeyay krish 3 uu dhamaaday promotionka waxa la xafladeynayay la baashaaliyay sawirkan lagu haystay laakiin sawirka ay qisadiisa waxa xagga dambe ka sheegi doonaan horta sheekada inoo wado هذا حفلتي مركي دماتي كان جنا يهرت كحرج كدوسي في عناده كالجعال وناك لكن ولي حما يشيغن توس حكم يشيغن سيداي هذا كودي كان ويه isaguna de wuxuu ku mudaqaaqan waa sida iyada laftiga hadal ku dhiga laakiin sheekadu inta ka weyn baa la yiri ya sheekadu inta ka weyn marka يعني أضاق لفتقيس رجيش روشن عاد بو إنانتا ولا دعسة سيدي إنانتا سيو كلا وا حفلت كاستا ولوغا يري جيري كان غانا كالي فتيشن إن عادو هيرتكو كالي حفلت دا إيدادي هبروداكتي سيديك عادو حفلت دا لسكو ويدارسان جيري معنا فاملكي كم من نقطهاي ناك دي حتى سوسان أو حاس كيسا هيد ناقي كيف ليسين هالكاس معنا حرير أي كاسا من كران وماي موقن هيرتك sidoo hadal u dhigay isagu wuxuu leeyahay saaxiibtinimo iyo walaaltinimo kalgacayl u baanan u muujinayay iyadoo laakiin waxa leedahay barorta orgiga ka weyn adigu waxay ku dal xafladeyntii waxaas marka dhamaatay sartum ba meel ka quruntay oo wala isku dhacay markii la isku dhacay xiriirkii markii uu gaabiyay sheekada nuxurkeeda banu soconaaye ayaa waxa dhacday halkan ay u dhimatay sheekadu ayaa waxa la yiri markii uu yirga gaabiyay ayaa waxay samaysay walaasheed waa qiso walba nolosha waxa leedahay actor adrished iyo boss okay laadar ka qisada Herit Roshan iyo kangana Ranud waa naagtan lagu magacaabo Ranguli Ranud waxa weey walaasheeda ay aad ku jeceshahay kangana Ranud talooyinka tusaalooyinkaba ay ka qaadatay aad ugu tirsan tahay waa naagtan maxay naagtan samaysay wasii hadalku u dhigayeen waxay samaysay bariyaha emailada iyo waxa Facebook waxan ma inaan jirin Blackberry ba xitaa shaqeynayay sidoo shirtig sheegay wixii telefoonka asaasitay adaa xad ku daalna emailay qorqortay emailay 6 bilood khiyaaliyadii ay soo dirdireysay naagtani sida la sheegay marka iyadoo sidii iska dhigaysa kangana waxa u direysay heritig oo kale heritig marka ciwaan kale email kale bay ku dirdireysay marka waxa leeyahay yani emailka kale iyada waxaan isku jawaabaysay vertical kaasan maraya adeeg ma soo iibsaday ka buuran imka soo gatay halkan aan marayay adeer baan la kulmay fidifada adu wixii maalintii ay sameynayso dhan bay la shirgaranaysay isaguna sidoo kale ugu jawaabay yani dad la xiriir leh adigu adeer ku daalna sidii ba waxa dhacday sheekada u socotay 6 bilood kadib باهرتك عوانكيسي دبتها أكونكيسي دبتها بيوحو ديرين ولي ناكتنا ودريسة قيبتا أفراد للصعو
okay kan waa part 4 ki part 3 wuxuu noogu dhamaaday iyaga marka bilaabay in email u dirdiraan qof sidii heritic oo kale la sheekaysanay oo kale dhacdada laakiin mar walba waxaad xasuusataa in naagtan ay ka dambayso macnaha mishinka adiga ku daalin 6 bilood kadib markii qofkii la sheekaysanay heritic oo eedan maanta sheegay aan laftigay kabahan iska bedelay wixii wax walba marka maalintii dhacayay ama nolosha maalinlaha ay sheer gareynayay sidii qof ama nin iyo naag yani xiriir rasmi oo jacayl iska daayay la isugu dheeraaday uu ka dhaxeeyo oo kale 6 bilood kadib marka sida hadalka loo dhigay naagtana ka dambeysay ciwaanka la sheekaysanayay walaasheed iyada markaas la walaasheed mala garab sii mala muuj ama ninka demishin galiya maadaama walaashan ay muuj adu waxay kugu daalne heritic wuxuu ogaaday 6 bilood kadib inay nin la sheekaystaan oo iyadaaba u soo dirtay ciwaankaas aad leedahay oo account-kaygii ba waka account-kaygii ba jabsatay markuu dib u soo jeesan waayay markuu soo jeeday naaga badan sheek ragga walaalayaal haday idin nacdeen shaqo walba tusaale waxa loo baahan tusaale laga qaato ninka ragga haduu ku naco ama aanu ku doonay ama xaas leeyahay ama uu nafsiyan ku rabin sida marboobta ha ugu dhagin okay fasax shaqadan qisooyin badan bay kale dabcan ida xasuusinaysa ajaayib liibli wax badan bay aan kale xasuusa waxaan kugu daalnay bilood kadib markuu ogaaday ciwaan kale inay sheekooyinka dhex mareysay oo haddana weliba ay kusoo rogeen ciwaankayga baad hakargarayso oo aad jabsatay wuu qaadan waayey heritigna dabeecadiisa waa nin degan oo afgaaban boolisku tegay wuu doondoonay qofkii hadalkaas qori jiray ee ciwaanka lahaa laakiin nasiib darro waa la waayey isaguna wuxuu yiri ani maya dacwad bay ku soo waxba tir dacwad baa kugu soo ogay waad ba i jabsatay wadiga fiidiyodaydii private-ka ii soo dirdir jiray oo waad ii hanjabaysaaba miya oo shakadii way budisho waxa tir waad ba ii hanjabaysaaba ya waad ba ii hanjabaysaayo de anaan ku doonin baad khasbaysaa oo kale de naamiyad waalanta naamaanigu de wallahi ka tahay way ku socotay arrinkii isaguna wuu aamusay wuu yaabay waxaan ku daalinay waxa u soo dhacay hada kadib ciwaankiisa saxda ah bay ugu soo dhacayaan iminka malaa 3,000 malaa maaha waa xaqiiq wala tiriye 3,000 oo email maalintii 20 waraaqood ama 15 waraaqood baa heritic loo dirayay 20 ama 15 waraaqood baa loo dirayay isagu maalin hore uu ka soo jawaabayay maaniga maxaa ma sameyn warkaalay ila hadal oo ila naag jeclaydo ciidisa isugu qasaysay adiga waxa kugu daalina bal waxa la socotaa part 5ka okay waxaan ku sii siqaynaa guntiga gabagabadii barnaamijka qaybtan waa qaybtii 6aad qaybtii 5aad waxay inoo mareysay markii uu guurka u soo bandhigay kan gana uu yiri ku guursanaya isla markaasna ay kala tageen muddo ka hor xaaskiisii rasmiga ahayd Susanna Khan markii uu ka qanciyay sida hadalka iyadoo dhigtay markuu waxay tiri iga qanciyay oo uu yiri يعني أرجودشو يا قلبي جاي حنون هايستي ورور هايستي كم جرسنيه ده أنا بس الله فكوتش عليه ده أقبل بركوان أقبلي مركز دبر وانس فهم وينه أيده تاج أنت وانس فهم وينه كتبنا مركز فهم ويننا وبيه هنشوف يقول صورة ده في يده سدبت صور دكيا أو بابليك دكيا ونيك هو بيه هنشوف واسيد يده مركا أي وضعته أما هذا القوة ده مركا إسقونه تاجين يهي horta iyadu way hadashay way caytantay ilaa waxaan oran karnaa 2014 ama 13 ama labada adoo 13 kan ilaa 13 14 15 16 17 baan maaynaa inay suuq afka kala furay oo hadlay 18 meelahaas sax sheekada bari hore ugu dambeysay laakiin sheeka aan la socday oo aan heritic ka xumaaba ahaydaan laha hadii uu xisku ogan muxuu ahayd la yahay hadii uu xisku ogeyn muxuu la yahay oo dadka ay wareereen muddo 4 sano kadib ayuu soo fadhiistay Republic TV-ga يعني هرتك ولا عنانت حلو يجري هرتك أو 4 سنة أيضا آمسنايد ما أنت أيات تروان خذليها وما حي سببت وحجري أنت حقبض ما آمس كرا أنت هرا روح نسلها أنت كمبيوتر كيجا أي وحكوش ودي عيوان دول قادني ها حتى واحد لو يدي كمبيوتر كاجا مركز صدق كون أو إيميل عاد قدوم السمان والبلاطة نشرين تقول وش أدري ما حاس يقبلوا جويدي
oo dadku waxay leeyihiin muxuu isaga baloog waayay haddaan isaga wax isku ogeyn dabadeedna isna wuxuu leeyahay balogba ma lahaynba computerkayga meel wax laga balooga ma lahaynba okay waa midda labaadee gabadhan anaga xidhiidh aan walaatin ma ahayn nama dhex marin ayuu isagu taagan waxaanay ka sheekanaysaa waa been xafladda sawirkana markaa isaga problemka ugu weyn ahaa sawirkana dadkoo dhan baa jooga caadi asxaabtiniman bay iga ahayd aniga xumaaniga maahan haye odayga aabbaha يعني iyada sidoo arkay aabahay familkayga dhan si wanaagsan buu arkay laakiin iyada waxaan oo dhan kamaan filayn inay igu sameeyaan nolosha igu haligto kamaan filayn muddo 4 sano intii hore computerkii ayaan u dul qaadanay laakiin markii dambana dibadda u soo baxday waxaan sameeyay nin wanaagsan baan aabo wanaagsan baan carruurtayda iga badan iyo mashquulkooda anu waxaan oo dhan aan dhigmo dhigi jiray laakiin minka waan yaraaday waan dhintay buu yiri markaas darteed inaan isqarxiyo oo maanta aan soo fariisto ayay dantii igu kaliftay qisadii waa taade insha Allah sawirka halka ka aragtaan waa family Ali Khan dadkina intiina badan wad garanaysaan waa Amrita Sin iyo Saif Ali Khan iyo labadooda caruur oo lagu kala magacaabo Ibrahim Ali Khan iyo Saif Ali Khan caaw qisadooda maxaan soo qaadanaa dabcan macna ku jiray dawladda sheekadaha ka dhicin okay hadaba intayna qisada u guda galin waxa xusidna labadan caruur sida ay waalidkood ugu kala eegeen waxa mid in loo kala qaybiyayba okay Ibrahim waa dambar dhacay Saif waa Saif oo yar saarana kama wayaraysano waa dambar dhacay hooyadeed Amrita ajaayib wallahi ma sha Allah okay qisada aanu guda galno Saif Ali Khan iyo Amrita Sin sidee isku gursadeen horta Saif aan in yar taariikhdiisa dib ugu noqdo Saif waa nin muslina reer muslim ka soo jeeda aabihii awoyaashii ta kale waa reer sharaf iyo sumcadka awow ku soo leh dalka Hindiya reer Batuudi baa la yiraahdaa aabihii waxa la yiraahdaa Mansour Ali Khan aabihii wuxuu ta kale ahaa ciyaartoy ciyaara cricketka oo guulo badan u soo hooyay dalka Hindiya hooyadii ayaa iyana islaan khatar ah oo xawiyay Sharmila Tagore oo sideetamaadkii waxay ka xaqiijisay guulooyin fara badan oo dirshad aad loo jeclaa 90yada xitaa waxaad ku xasuusan kartaa waa dirshada hooyada ku matalaysa ku jirta filimka dadkan iyo filimka man filimada aan la ilaawi karin okay haddaba reerkani maadaama yihiin reer muslim horta muslim sad magacyada ka garataan waa muslim waa dad hantile waa dad sharaf leh waa dad cizi leh waa dad dhinac walba ka dhisan okay Saif Ali Khan ayaa wuxuu ku soo biiray Bollywoodka isagoo yar oo marka aan 20 biga dhow filin adu markuu 2 mooyo 3 waxaas noocaas sameeyay waadna isaasixi kartaan ayuu wuxuu bash ku noqday oo uu jeclaaday Amrita Sin oo marka adirshad weyn oo dhowrisidan jira oo filmo badan sameysay guulo badan iyo laftigeeda ka xaqiijisay bash buu ku noqday wuu jeclaaday iyada laftigeeda waxa la yiri waxay ku wareegi jirtay Sunny Deol ay ku wareegi jirtay oo jeclaad inkastoo la yiri Sunny Deolna waa wuxuu lahaa heer oo fahamkiisa la dhabow degan laakiin uu qarin jiray bariga waqtiga aabihi baa kula taliyay inuu qariyo halka laftigeeda macna ku jira marka inankan bash buu ku noqday wax kasta heerku ay sameeyeen nooma qalanto xag family uga qalanto xagga da'da 12 sano ayaa u dhaxeeya Saif Ali Khan iyo Amrita Sin xag family xagga diinta dhinac walba lama rabin haddana wuu guursaday waa kuwa labada carruur waaweyn kasta maanta kala tagaan laakiin labada carruur waaweyn ayay soo hayaan ma sha Allah laga yaabaa farxiya fiska aad ka dhamaan laadiin inankan inuu yiri waa istilayaa nololba iiga ma ka dambayso oo naftaan iska jaray hadii guursan weydid ma laga yaabaa we don't know way imka waxaan gaarnay saacadii waaweynaa ama amintii weelka jaqsada marka la waxa weeye dadka dhagaha u soo raariciya ama dhigta u maala qisooyinka aan usoo tabiyo aad baad u mahadsantiin aniga laftay aan ku faraxsanahay xaqiiqatan mar walba waxa dadka aan ay soo qorqoraan ama ay ugu yiraahdaanba full energy hada ciyaar full energy hada hadlay full energy marka taasna hadaan in sheego sababteeda waxa way wax kastaan sameynay daacad baan ka noqdaa taas way sababto okay aan qisada si toos ah noogu galo qisada in soo wada caawa qiso cajiiba عجيب مركا الله ما ميد أنا قنعسي أما أنك هلاي no ما ميد أنا ka helay waa mid ka boodo oo u baahan waliba in dadka laga wacdiyo oo laga digtoonaado qisam marka la leeyahay waa mid ama kugu dhacday ama walaalka ku dhacday ama kugu dhici doonta ama qof uun aad aragtay ku dhacday tana soo wada laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaga iyo ummadda muslimka iyo waliba khaasatan Soomaalida toona kuma rido laakiin waa waxa dana nolosha ka jira oo ay tahay macquul inay dhici karto okay laga digtoonaado baa muhiim Ilaahay raxmaan kunay
يعني إنك ما ديكو كوي أما حاسمينها ملقو سمينها خيانة إنتالي أوكي إن أرجن كابور وتقرنيسان وحويه إنك أودلاي بوني كابور فيلم صارها شركة بوليوودكا بوني كابور فلاد الشيء أنيل كابور يسنشي كابور هذا ذكرنايسان مركا أنيل كابور يسنشي كابور حويه هنا أدار رما إنا كان أرجن كابور سيدا كان وحا عيو أهيد سهر ديف ودا شيء جانفي كابور يخشي كابور هالكاسو جانفي كابور يخشي كابور كلي هاي ولال أما ولالو أيهين حق أبي أوكي أن قصص توسع إنه وكلا نين كان أرجن كابور أدار كيسان أكتر كعجيب كأوتقانان إن كستا اللي راه دوحو كجرا one of the failure actors هذانا وأكتر كلي لو ذا قرناي أنا راح نين كان أيا إن مرنبا مصوريسان أم مصوران one second إنه نقدونه فيلم أكتر يعني إنه أكتر نقدونه وغيره حكوا فكرة جرين سيدا آبها دايركتورز كنقو لكن نين كان لوشي سبدلي وحها سلمان خان باك عنت قبتي سلمان خان باك ويجي أكتر ود نقون كرتها سلمان خان باك حي وين كان سيدا نوهات شو لقبوها مو بديار سنين أكتر نمو dabadna talent ismu balhan baad u leedahay actornimo aduu Salman Khan ba qalciyay Salman Khan ba actor ka soo dhigay Salman Khan ba ina baraninkan okay laakiin muxuu sameeyay wuu ku jizaaray sida uu ku jizaaray gabadhii walaalkii Arbaas Khan oo garanaysan iyo malaa'ika aroor oo xaaskiisa Arbaas Khan ahayd oo iyada laftigeeda aad garanaysaan oo inaan kan weyn ay isna dambal dhacay aabihii aan ma garanay dadka wada koobiga baaska ay u dhashay ayuu la baxay afgambi ba heer ku sameeyay ilaa imika gabadhii xaaskaas ninkii hore isaga wata inkasta kala tageen haddana dee dhabarjooyin buu ku sameeyay Salman Khan Soomaa